nin askari ay soo qaaday askarti oo dadka ciirsanaysa in ayaga tahayba laga yaabo wuxuu keenay magaalada duleedkeeda wuxuu dhahay gabadhan soo helay yaa korsanayo hadduu dhahay yaa korsanayo nin baa qaaday isagana reeru iigeeyay burburkii iyo qixii Soomaaliyeed waxaa ku kala lumay Soomaali badan kuwaasoo aan wali is helin. Farxiye Cabdinaasir waa hooyo haysata 6 caruur oo ku nool xeryaha qaxootiga ee Dadaab. ma ogeyn waxbana ma garan karin laakiin qiyaas ahaantii ayaa lagu sheegay in 4 bilood ama 5 bilood ilmaha u dhaxeeya ahaa xitaan fariisanaynin wali lama kulmin qof ehelkayga ah. balse Farxiye abid maysan arkin dadkii dhalay sanadkii 1991 ayaa meydka hooyadeed oo la dilay laga soo dulqaaday meel duleedka ka magaalada Kismaayo sida loo sheegay waxaana soo koriyay qoys Soomaaliyeed oo soo barbaariyay. waxaa rabaa qof uu jadu jiro ay ka maqan yihiin xilligaasito hooyo soo qaxday cunug yar wadatay gabar ahayd lama garan karo oo qofkii weynaa haduu dhinta la isma dhigi karo cunug yaraaya nool laga yaabo inuu qofka dhaho hadii hiblaayo dhimato cunugina uu ka daba dhinta. Farxiye 30 sano kadib hadda ayay raadinaysaa dadkii dhalay. aniga waxaa ahay xilligaasito gabar laga soo helay hooyadeed meedkeeda ayadoo jaqayso laga soo dul furay Kismaayo ee boorkeeda iyo magaalada Kismaayo inta u dhaxayso ayayna ahayd meesha laga soo dul furay hooyadeed. waxay soo qaaday nin askari ah oo qoliyaha askarta ahaa wuxuu igeeyay magaalada Kismaayo haduu alla ku roon yahay Kismaayo waxa lagu soo koriyay guriga ku yaala magaalada Kismaayo dhexdeeda reer ay soo koriyeen qeyr Allah isiiyo nolosheeda 14 sano markii gaartay reerka waa ka tagay waxaa la tagay reer kale taala kulmay waa la guursaday waxaan dhalay awlaad alxamdulillah laakiin qofka markuu yahay bini aadam nolosha way ku adkaanaysaa markuu kaligiis yahay haddana markuu hooyo sii noqdo way sii laba jibaarmaysaa marxalado badan la soo maraya hooyo markaa noqotid markaa uur yeelatid markaa ilmo dhashid dayac badan la kulmaysaa qofku wuxuu rabaa qof garab siiyo ama walaal ah ama ehel ah ama arxan ah ugu yaraan xitaa hadaa isku dhacdaan family ahaan ama ninka isku dhacdaan adigu ku qabay waxa u baahan tahay wax kala xaliyo oo idin kala islaaxiyo oo idin kala dhaxgalo marka waxaan waafinayaa anigoo Farxiye Cabdinaasir ah oo la yaqaan Farxiye Cabdinaasir. Cabdinaasir waa aabahay ilmihi naaska la ila siiyay aabahood waaye qofka naaska la nuugto walaalkiisa tahay oo sharciga islaamka dhaxal ayaa ku leedahay laakiin ilaa hadda lama kulmin aabihii dhalay ma arag. hooyadan oo ilmeynaysa ayaa Soomaalida ka codsatay inay la raadiyaan dadkii dhalay waxayna ku qanacsan tahay in laga qaado hidde-sidaha DNA-ga si ay u ogaato cidii dhashay. hadee hooyaday dhimatay ehelkayga adduunka meel kamid uu saaran yahay dadkii may wada dhamaanin biyo lama aha lama wada gurayo hadii hooyo la waayay waxa macquul ah in aabba la helo hadii aabba la waayay waxa macquul ah in adeer la helo hadii adeer la waayay in la helo habaryar in la helo qof allaala qofku wax ka maqan yahay ama xilligaasito uu qof tabayo inuu ka tagay cunug yar wato hooyo Soomaaliyeed gabar wadato ee ka soo tagtay ama rajeynayso oo niyada uga taagan yahay inuu qof ka maqan yahay aniga maqan oo baadi ah inaan isla soo xiriirnaa rajeynaya insha Allah. kadib markay kala tageen ninkay ubadka u dhashay wuxuu shuruud uga dhigay inay caruurta ku wareejiso haddii kale uusan dhaqaale iyo biil ku siinaynin iyadoo ka walwal qabta nolosha kalinimada iyo ehel la'aanta ayayna go'aansatay inay caruurteeda haysato waxayna hadda daris la tahay xaalad nolol xumo iyo daryeel la'aan iyada iyo ubadkeeda. nolol aad u adag waa qof bini aadan kaligiis ma noolaan karo xaqiiqda markii loo fiiriyo markaa ka cadlaato kali noqoto waxaa dareemaysaa nolosha nololaha ugu xun ilaa qof iimaan leh oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala ictiraafsan moogi ma ka bixi karo qof kaleeto way ku adkaanaysaa xaaladaasito waxyaabo badan laga qaaday. waxay fariin u dirtay qof kasta oo gabar ka maqan tahay inay la soo xiriiraan maalin maalmaha kamid ah la kulmo qof ehelkayga ah ama jiirkayga ku yaalo aad aan u xiiseynaya sababtoo ah qof bini aadan ah ma noolaan karo ehel la'aan wuxuu ku fiican yahay qof walba inuu ehelkiisa la nool yahay nolosha waxay farxad ku tahay markuu cunugaaga abti leeyahay awoow leeyahay ayeeyo leeyahay la kolkoolinayo aadna ku faraxsan tahay zaid igu xumaata marka maryaha qaar oo marka umalo kaleeto wax miciina aan haysanin laga yaabo in istaal ku dhalo ama guri ku dhalo oo igu yaraado gargaarka dad hadda hooyo ahay ilmaha haysta qaxootiga la jooga cidina wax ugu ma tartamaanta qof intuu ila soo qasdo bishii $50 meel iga siiyo ma jiro waxa ka balan qaado 10 bari oo Ramadaan xiriir inaan soomo
qof jiirkayga ku yaal hadduu arko insha allah ma aan la kulmo sababta oo codsanayana dhib anay soo gaarto ay waa qiyaasi kartiin qof markuu keligiis meel ku noolaado ama uu keli noqdo dhibka soo gaaro aadaan u qiyaasi kartiin qof keligiis ma noolaan kara haddana dumar Maxamed Baaruud Xuseen, warbaahinta Star, Dadaab.